السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقض وعن أو فرحات له أيام كدب إله سبحانه وتعالى ميل والبا أن دنيا كلا جوجنا هاينا قوة حفظية الدمانتين خلطاتكو وقيب مهم أو نلاشة كمدة هل خلط أو وين أتسميسيد أيا نلاشة هذا الدم بدلي كرا وحان فيديو كان إذن كلا وذاقيا سدح خلط أو نلاشة هذا بربورينايه أين التهي إن إسكا إلاليسو كان في جيجناتو كو إن أد اهتمامك أما ديردة أو دان سارتد وحيدتك كلا كا من سيهين هدي أد danaynayso waxay dadka kale ku leeyihiin waxay dadka kale ka aaminsan yihiin waxay dadka kale ka qabaan ama fikirka ay ka haystaan waxaad noqonaysaa ugu dambeyn waxa aad u malaynayso inay rabaan inaad noqotid waxaad mar walba ahaan doontaa mid xabsi ugu jira oo u maxbuus ah weligaa ma faraxsanaan doontid haddii aad si joogto ah uga walwasho waxay dadka kale ka qabaan samee waxa ku farxad gelinaya oo hadanaynin dadka kale fikradda ay ka aaminsan yihiin labo si joogto ah inaad naftaada la barbar dhigto dadka kale ha la barbar dhigin naftaada qof kale oo adduunkan jooga haddii aad samaysidse waxaad dhaawacday waxaad liiday waxaad haybadda ka qaaday naftaada iyo shakhsiyadaada qofna ha u arkin inuu kula tartamayo ama in aad la tartamaysid isku riyo isku hadaf isku qab isku maskax midna ma tihidin qof walba wuxuu la lagdamayaa oo la dagaalamayaa noloshiisa ma jirto isbarbardhig ka dhaxeeya qoraxda iyo dayaxa waxay iftiimaan oo mid walba uu soo baxaa markii waqtigiisa la gaaro haddii aad rabtid inaad samayso isbarbardhig aadan ka fursan karinba isbarbardhig naftaada siday shalay ahayd iyo siday maanta tahay iskuna day inaad ka fiicnaato maalin walba sidaad ahayd saddex inaadan waqti la qaadan qoyskaaga wuxuu noqon doonaa haddii aad dhalinyaro tahay oo aad la nooshahay familigaaga waalidka iyo haddii aad xaas tahay oo ama aad nin tahay oo aad reer leedahay ama aad gabar tahay oo aad reer leedahay oo aadan la qaadan waqti qoyskaaga badanaa dunida maanta ilmo badan oo xabsiga ku jira oo danayn lahaa oo jeclaan lahaa inay maalin waqti la qaataan aabbayaashood waxaan dhihi karaa hooyadu mar walba ayay ilmaheeda la joogtaa oo waqti la qaadataa laakiin ilmaha si walba aad ugu soo shaqaysid iyo si walba aad wax ugu qabatid iyo si walba wax u tartid waxay ka jecel yihiin uga farxad badan weligoodna ay kugu soo xasuusanayaan hal saacadood aad banaanka la tagtid ama hal saacadood aad fadhiga la fadhiisatid aad waqti la qaadatid aad la sheekaysatid weligood ma ilaawayaan mustaqbalkana qalbigooda waxaad ku lahaan doontaa boos weyn laakiin balaayiin lacaga haddaad uga tagtid laakiin habeen ama maalinna aadan waqtigaaga waxba ka siin aadan la sheekaysan aadan waayo aragnimadaada aadan u gudbin marna lagama yaaba inay lacagtaas kugu qiimeeyaan aysa kuguna soo xasuustaan waalidku waa waxa ugu qiimaha badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey hadduu waalidkaa kaa dheer yahay isku day inaad xiriirisid isku day inuu hadafkaaga kugu jirtid inaad soo booqatid isku day inaad yacni mar walba xaaladooda ka warqabtid waxna tari kartid hadday kula joogaane ogow wax walba iyaga ayaa kaaga muhiimsane mar walba waqtigaaga ugu badan iyaga ku bixi waayo waxaa jiri doontaa maalin aad mashquulka ka bixi doontid balse aysan baaqi iyagu dunidan aysan ku ahaan doonin marka intaad qoomamo iyo ciil iyo dhibaato ada qalbigaaga ku gubi lahayd waxa aanan soo noqonaynin maantay la qaado qoyskaaga waqtiga aad qoyskaaga ama minidka aad qoyskaaga ku bixisana balaayiin ayay kaaga qiimo badan tahay oo kaaga farxad badnaanaysaa markii aad samaysid telefoon walba iyo social media walbana aad iska damisid oo tiraahdid waqtigan maanta waalidkaybaa iska leh waqtigan maanta caruurteeda iska leh waqtigan maanta waxaan ku bixinayaa walaalahay inaan la sheekaysto hal midna xasuusnow khalad ma aha in aad khalad samayso balse waa khalad inaad ku celceliso balse waxaa khalad ah inaad hal khalad ku celceliso oo wax badan aad samaysid ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen wax walba khayrku ku jiro ha ina wada waafajiyo waxaan idinka tegayaa fi amaanillah anigoo khadra caliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh